shirkadda shaqaalaheeda lacag ku siinaysa in ay socdaan ama lugeeyaan. Intaan u gudagelin sheekadan haddii ay tahay markii kugu horeyso aad na soo booqato fadlan nagu soo biir mahadsanid. Shirkadda Shiinees ayaa shaqaalaheeda waxa ay ku dhiirigelinaysaa in ay si maalinle ah u socdaan ama ay u luga baxsadaan. Waxayna abaalmarin lacageed ku bixinaysaa qof walba sida uu u socdo ama uu u lugeeyo. Shirkadda soo saarta waraaqaha ayaa waxa ay soo bandhigtay ra'yi fiican oo dadku ay u bogeen, taasi oo shaqaalaha shirkadda ku dhiirigelinaysa in ay socdaan ama lugeeyaan. Waxayna sheekadan qabsatay hadalhaynta warbaahinta dalka Shiinaha. Si aanu sare ugu qaadno tayada shirkadda, sidoo kalena aan sare ugu qaadno tayada caafimaadka ee shaqaalaha, waxaan muhiim u aragnay in aanu soo kordhino fikradani. Waxaana shaqaalaha ku abaalmarin doonaa lacago sida ay u kala lugeeyaan ay ku xiran tahay, taasi oo moralka u dhisaysa shaqaalaha shirkadda ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay shirkadani. Maskax fiyow oo firfircoon waxa ay ku jirtaa qof caafimaad qaba, waxayna ku xiran tahay abaalmarinta shirkadda ay bixinayso qof walba sida uu u socdo ama uu u lugeeyo. Tusaale ahaan, haddii qofka uu lugeeyo bishii 100 kiiloomitir waxa uu helayaa abaalmarin qaali ah. Sidoo kale haddii uu lugeeyo 50 kiiloomitir iyo wax ka yar waxa uu isaguna heli doonaa abaalmarin qaali ah, laakiin waxa ay ka hooseynaysaa abaalmarintaasi tan la siinayo qofka lugeeyay 100 kiiloomitir. Haddaba daawade, fikirkan ay soo bandhigtay shirkadani samaysa waraaqaha ee ku taala dalka Shiinaha, adiga sidee ayuu kula yahay? Haddii se lagu oran lahaa u soo lugay shaqadaada subax walba oo galabkii marka aad hooyanayso ka sii lugay si aad u hesho abaalmarin qaali ah, ma samayn lahayd adiga? Fikirkaaga noogu reeb dhanka commentiga.